ururka wadaniga ee KDO Khayraad Development Organization ayaa maanta raashin u qaybiyay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Caynaba iyo deegaamo hoos yimaada. Raashinka ururkan maanta u qaybiyay dadka danyarta ee ku dhaqan magaalooyinka Caynaba, degmada Og iyo degmada Yugori oo hoos yimaada gobolka Sool ayaa waxa iska soo kaashaday dadka u dhashay gobolada Sool iyo Saraar ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa iyo ururkan Khayraad Development Organization. Ugu horreynna madashii lagu qaybinayay raashinkan oo ahayd gudaha magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar waxaa ka hadashay Farax Arshe oo ah gudoomiyaha ururkani KDO waxayna ka warantay raashinkan ay qaybinayaan iyadoo tilmaantay inay ururkeedu uu raashinkan ka soo ururiyay dadka u dhashay gobolada Sool iyo Saraar ee ku dhaqan magaalada Hargeysa iyadoo sheegtay inay ugu tala galeen dadka danyarta ee ku dhaqan magaalooyinka Caynaba, Og iyo Yugori oo hoos timaada gobolka Sool si ay qoysaska danyarta ay uga faa'iideystaan maadaama lagu jiro bisha Ramadaan ee khayrka badnayd. Waxayna si weyn ugu mahadcelisay wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi iyo Cabdi Awad indhadeero oo ay tilmaantay inay gacan weyn ka geysteen sidii raashinkani u soo gaari lahaa deegaamadani. wax yar iyo wax kalaba inaan maanta bilaabay midna ila tahay inaan ka warhayo baaqina la geeyo meel dheer sida markii waxaan u mahadnaqayaa dadka ila qabtay arrintan oo ugu horeeyo Naasir Cabdi Awad inaan indhadeero aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirkeena iyo hawada Maxamuud Xaashi Cabdi. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan gabdhaha asxaabtayda ee gurmadka ila qabtay in yar iyo in weyn qofkii kula qabta mahadin ilaahayna ha ka shaqaysiiyo dhammaantoodba. Naasir waa magaaladaadii wadii gurmadka shay garab taagtay Maxamuud wasiirkeena sidaas leed gabdhaha asxaabtayda iyo dadka maayirka degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan oo isaguna ka hadlay deeqdan raashinka ah ayaa markii ugu horeysay u mahadceliyay ururkani iyo deeqda raashinka ay soo gaarsiiyeen dadka danyarta ah. 27 Ramadaan waxa ma sha Allah halkan deeq raashina oo dadkii soo barakacay ku soo gaarsiiyay hay'adda ay gudoomiyaha ka tahay Amina Farax Arshe ee Khayraad Development Organization. raashinkaas oo la siinayo sida aragtaan dadkii soo barakacay ama dadkii masaakiinta ah ee deegaankan deganaa. runtii waa arrin khayriya. waxaanu leenahay ilaahay jisa ay khayr ah idinka siiyo meeshii aad ka soo saarteen iyo cidii aad ka soo keenteen iyo tacabkii aad geliseenba ilaahay xasanaad khayr ah idinku bedelo. waa bil Ramadaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa ilaahay baa ammaan iska mudan hay'adda ka soo shaqaysay ee gudoomiyaha ka tahay Amina Farax Arshe oo u soo gurmatay dadkii deegaankeedan. waxaan taariikhda ku hayaa Amina Farax Arshe waxay ka mid ahayd hablii ugu horeeyay ee iskuulkan Caynaba lagu furay waqti aan dhaweyn. runtii maanta iyo maalmo hore badanba deegaankeeda wax badan bay ka soo tartay. sidoo kale barsaab ku-xigeenka gobolka Saraar Ibrahim Jaamac Maxamed oo isna goobta hadallo ka soo jeediyay ayaa tilmaamay inaanay shacabka gobolkani ilaa uu doonin caawinta KDO u sameeyeen dadkan danyarta ee ku dhaqan gobolka Saraar iyo weliba gobolka Sool. sidoo kale ururkani KDO oo ay hogaaminayso Caasho Farax Arshe waxay saaka raashin sidan oo kale ah uga qaybisay degmooyinka Og iyo Yugori iyadoo goobtii raashinka lagu qaybinayay degmada Og uu goobjoog ka ahaa maayirka degmada Og Cabdinaasir Cabdisalaan Shire halka degmada uu deeqdaasi ka gudoomay maayir xigeenka degmadaasi Aadan Dheere. ururkan Khayraad Development Organization ayaa mashaariic kala duwan ka wada gobolada Sool, Saraar, Togdheer iyo Saaxil kuwaasoo kor loogu qaadayo nolosha danyarta. Maxamed Aadan Dirir, shabakada wararka Burcoonline, magaalada Caynaba.